kulanti haboon daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Nisdaacad alaaba halkan waxaan idinkugu soo gudbinaa xogay u dambeeyay guud ahaan geyga Soomaaliyeed muuqaalka inta daawanayso waxaan ku soo gudbin doonaa abaabul dagaal oo laga dareemayo duleedka magaalada Baydhabo ciidanka garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ku sii qulqulaya ama bakaabiga ku haya magaalada Baydhabo iyo sidoo kale gudaha magaalada Baydhabo ciidankii Koonfur Galbeed oo heegan la geliyay xilwaana ka tirsanaa maamulka Koonfur Galbeed oo u goostay garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen muuqaalka ayaan ku faahfaahin doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig ambalelkana furasi ku soo gaara muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahay inoo share garay like inoo saar si uu gaaro asxaab badan waa ku maadsanta daawashadaada ayna ku bilaabnay duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga dareemayaa abaabul dagaal oo aad u xoogan kaasi ay wadaan garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaana laga cabsi qabaa in saacadaha soo aadan ay weerar dhowr jiha ay ku qaadaan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya sida ay tilmaamayaan xogaha qarsoon ee naga soo gaaraya duleedka magaalada Baydhabo afayeenkii hore ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa xalay muuqaal si aad ugu faafay baraha bulshada soo dhigay bartiisa wuxuuna ku soo qoray hadallo u muuqda in marka leh ay weerar ay qaadi rabaan sidoo kale wararka naga soo gaaraya gudaha magaalada Baydhabo ayaa waxay tilmaamayaan in ciidanka Koonfur Galbeed Soomaaliya la geliyay heegan buuxa si ay uga hortagaan weerar kasta oo kaga iman kara garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen maadaama ay muuqato saasaanta weerar ay soo qaadi karaan ciidankaasi waxaa sidoo kale la tilmaamayaa in shacabka qaarkood ee ku haray magaalada Baydhabo xilligan ay soo food saartay cabsi aad u xoogan kuwaas oo ka cabsi qaba in mar kale garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ay weerar ku soo qaadaan magaalada Baydhabo isla markaana halkaasi uu ka dhaco dagaal sababi kara khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed sida dhowr jeer oo hore intii Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen laga wareegay magaalada Baydhabo ay ugu dhaceen dagaal dhiig badan ku daatay iyadoona dagaalkii u dambeeyay uu sababay barakac aad u xoogan iyadoona taliyihii magaalada Baydhabo arintaas ku tilmaamay dadkii shacabka ay dhibaatada soo gaartay kuwii ka barakacayba inay ahaayeen caruurtii madaxweynihii Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen dhinaca kalena hadii aan adno xildhibaan macalin aadan cali arbow oo ka tirsanaa baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana deegaan doorashadiisu ay tahay Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa la tilmaamay inuu ku biiray safka hore ee Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaana halkaas ku soo dhaweeyay xildhibaano iyo mas'uuliyiin oo hormuud ay ka ahaayeen Cabdiwaxaab Macalin Salaad iyo sidoo kale Cabdullaahi Nuur Maxamed kusoo biirista xildhibaanka ayaa waxaa lagu sheegay in ay fariin iyo sidoo kale baaq u tahay shacabka iyo sidoo kale waxgaradka iyo siyaasiyiinta kale halkaas ku sugan iyadoona muddooyinkii u dambeeyay ay soo tarayeen in xildhibaano amaba mas'uuliyiin ee ku lahaa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku biirayeen garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen nin aadi yabaal difaaci waay oo maxaas difaaci waay geega Baydhabo ma difaacaw buurhakaban ma difaacaw waajidna ma difaacaw xaqiiqda marka la ka hadalo waay shacabka digili mirfa qaasatan reer digil dhulka kiigin iyo lahan socdo isagna ma ka warqabtaan runtahoo la ka hadalana Soomaaliya wacdiga geega una ka jirna reer Koonfur Galbeed ho una anna waayo wacdi aad u duwan waay sababtoo ay walin dawladeeyahay qabiil ahaan iyo haddana ninka adeegsidahay qodobka labaadna horta ay mahad celiyay markii ugu horeysay rag badan oo saaxiibaday ee ka horeeya madaxweyne Cabdicasiis xamar madiina ku tabaay oo Baydhabo kooyay ilaa aan xarunta inta kooya loo warqabi saacad ka dambeeyay yaa la kula xiriiraa inta roogta ma xaaladda ay ma baahantay li aray horta iidiyadan kuma santintaas may fariin indire marka shacabka digili mirfa qaasatan reer digil dhulka kiigin iyo lahan socdo isagna ma ka warqabtaan Xasan Sheekh sharciyad saddexaad wadankan hoos in hela dhulka kiigin aan socdo beero boosaska xoolihiin lahan socdo waayo shaati dawladeed iyo xilligaas isticmaalahay awood ka reebaasna male ho aragtida hadda ada diida is abaabulo naf iyo maal ag dhigta halganka dhulka kiiga ada difaacta waa xilli dhow cudur maduus aragtay yarya iyo la daaweeyay hooskii faafa oo guntiseeda mal daaweeyay kor xasan horta cudur waay
ragga kaloo la shaqeeya oo geega digil imiriflahan adeeg sidahay aragteen mana difaaci koraan sababtoo ah rag shaqaale ah 200 oo caate ee lisiyahay oo dadka kiisho deegaansho hataa ma arag ahaayana 200 iyo fiiriyaan qaarsho 200 hataa ma helahaayaan caqabadaha taagan way macna darri in dhamadahaayaan dawladda la ka arahay war dawlad meelin horta ma taala xaqiiqda markii la ka hadala dawlad goboleedka koonfur galbeed madaxweyne Cabdicasiis madaxda ka ah oo ana geegi xildhibaanka ah sharciyan dawladdaas deegaanku ku shaqeeyaas xasan sheekh marna mansuurta galaas horta awaamiirtu uswadida qodobka kale ana reer digil imirifla qaasatan reer digil aan ku boori fadahay dhibaatada hasin ku socoto horta in isin fahantaa kan dalka rooga kan dibadda rooga kan aragtay dawladdu beenbeenta ka shaqeeyahay horta fahma xasan sheekh qof 90 sanaan jira gurigaanan ku dhashay ku barbaaray ninkii arahay oo booska kiisha boobahay birriho sharciyad saddexaad waddankan in hela ada ka dhaafay way su'aal waa maya way sharciyadna in heli sharciyad an ka dacwoodaasna male marka ini uu nagada lahayni IDB qaxooti barakacyaal nagada lahayni dhulka kiigayna la booba lahay aragtidiis hadda unin diid way ifafaala hadda si muuqdo ninkan la araaw aadan madoowe 18 degmado degmo kamid ah hataa ma arna gohaana maantan ma eragaytan markii shalay abati usiina ka shaqeeyahay cid kaleena ma ka shaqeeyahay degmo kale hadana higta baahayta ma in baahayta marka nidaam xumada dawlad dhisan Allah ku duuli deegaan dhisan Allah ku duuli dad nabad haysta Allah ku duuli la burburiyahay horta Soomaalida may araasay fulay waa qoriyo badan yahay araas maykii muuqda baydhabo oo 15 kun oo askari ka badan roogta ayaa maalin walba ila aray diyaarada Allah ka daabulay ciidan ala sheenahay fulay waa qoriyo badan yahay Soomaalida araas xasan muku suurti galayso horta baydhabo walaa adadka damacsan mabkiin suurti galaas taahon kataba siyaasiyiinta dadka dhaqanka ah dadka aragtay aqliyada saaxiib leh oo digil imirfil dhaladi halganka la ka qayb qaado naf in maalan horo deegaanka kiigayna lahan socdo barakac inii noo dhiga qaarna dal waldugodo duurka la geliyo ama xadkabka baxan kuwana la ka shaqaysada intaas la fadahay marka intaas weelo kordhay way su'aal waa maya ma weelana taas meel kale nin qarson un geega ka badbaadaan mani muuqato dhulka kiigayna lahan socdo taas marna ma akhrisadaan mana weelaan taa madii aan ku gudub reer baydhabo ama reer koonfur galbeed Soomaalida ma araase nin aan aragtay ku fureynin iyo ku soo rarin macnaha nin aadiya wal difaaci waay oo maxaas difaaci waay geega baydhabo ma difaacaw buurha kaman ma difaacaw waajidna ma difaacaw xaqiiqda marka la ka hadalo waay marka taasna fariinga kiin at dad baa may hadda ka dohwaayaan buurha ka wal difaace baydhabo horta ogaada baydhabo iyo buurha ka masiin difaacaw حسن شيخ وقت شينا دمادي hadda may ifafaale ee muuqda ciidanka dawladda oo saddexda waqti ku qoodaay waqti kamid ah la jari laba waqti la ka reebay ciidankiisa haydi qaadaday waqti la jari laba la ka reebay marka usiibaba tabar hayta talabaad reer koonfur galbeedow digile mirifle dadka aqliyada in saaxibka ah war xasan sheekh damac usawdeed iyo rag kale oo shaqaalaha ee handasidii koonfur galbeed in la burburiyo dhulka kiigayna la meegaagado una wadanka kiigayna markii dawladii Soomaaliyeed dawlad kasto Soomaaliya la hadis horta ne dhibaatayaas lixdankii markii dawladii Soomaaliyeed Maxamed Siyaad bar wadanka xukumaay wadanka qabiilka ma jiri wasiir bixina ari markaas hadana dadkii lixdankii awaarta dhiisay aynabi iyo og iyo awaarta ka dhiisay dadka meel la ka qaadi dhulka kiigayna la dejiyo kurtuwaarey qoryooley sablaala diisoor deegaanadaas qaar bay dhawiilasheen dadkii awaarta la qaadi ayaa hadana mayla aray dadka kaas ayaa muwaadiniin ah biyo macaana la siiyay qofkii gorodaa reer qoryooley 45 kilomitir ceelki jeebay biyaha la ka qaaday duleedka degmada qoryooley tuulo ka taal ayaa la jeeyay dadka deegaankaas qaxootiga linshaani biyo macaana la siiyay
dadka wadaniyiinta ee dhulka deganaya iskaa bixiyayaan dowladda naf iyo maal xura canshuur bixi ahaayeen walna mal siina una dulmi dowlad Soomaaliyeed tan manin ka horreeyay horta ilan tan may ka duwantee diyaaradaha noo weerartay maalintii baydhabo hagalayti aan roogi may ka aalaasay jilib iyo bu'aali geega qabada hayta dowladda kor iyo hoos la ka weeraray haddana may labaad may hanagtay diyaarada kale F16 iyo B52 yaa inay adeegsidahay diyaaradina noo weerarahay dabaabadiina noo weerarahay deegaankiina roogno duulaan ma an aadan yabaal masaana xamar dhinac kamida misheegada eeler misheegada hayna buluburti rabna ma arahayna dhulka kiigayna iyo duulaan la ka marka weelaanay tolowtaas maya ma weelaan dhalinyarada oo inta badan iska warqabno oo deegaankan qaar bay dhow roogan qaarna aragtay muqdisho roogan qaarna aragtay qoryooli ku sugayaan ciidanka anfac la araaw hadda bay dhow rooga in badan yaa maalmahan dhow wada hadalaayni marka maysiinka baaqay horta meeleen ka dhimiteen meele aad ka dhimadaas horta mabda'a lan dhimidee mabda'a oo xambaarsanta mabda'a kiiga la ko tixgeliya dawladnimo man dhimadahayd shaati xun oo boliis cad ko cadaadi iyo dacsa wadid 5 sano ama 4 sano mushaar ma qaadana tusaalahan kadib haddana 4 bilood ninkuu roogiya wax mushaar ma qaadana maylaysiin ka fadeen marka halganka kooya deegaanka dib horeenta ka qayb qaadada wala siin dhawaaye telefoonada in furiyaan hani la xiriira hasin dhawaayaan may weeli meel mabda'na man ka dhimadahayd mana la ka aqoonsanya ho ada dhaawacanta daryeel ma helaas ho ada geega aragtay manfac la arana ma helaas marka taasna caqabada siinka ata dhalinyaro badan oo iska warqabna ayaa jira operation badan oo dhiyayaan baydhabo dhati ay ka dhiyayaan jiraan insha Allah marka ka qayb qaado doontaan iska warqabna taasna diba iska wareysadaana si gaar ah may ha ku gunaanade heer digili mirifla dhulka kiigan Allahan socdo geegan arteen eedina geega xukunka qabsadee may lindiidahay arteen ona walaas horta walman aragahayna ona may aragahayna nin muuqode nin dhulka kiigayna xaraashahay oo dadnimada tiidayna xaraashahay yaa nin muuqdo may weeli dawladnimo dhisanta nidaam dhisan oo nabadgelyo leh ka haysadii duulaan la ka qaaday diyaarada F16 Allahan qaadi B52 marka may kale nin dhimin may kale ina sugahayna haddii aad daawatay muuqaalka dhamaysatay wixii aragti kaaga baxay inoogu reeb qaybta faalada haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeenana fadlan subscribe inoo dhig gambalelkana furasi uu ku soo gaara muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahay inoo share garay laakiin noo saar si uu gaaro asxaab